ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum. Badanka dadku ku nool caalamka waxay aaminsan yihiin inay ruux wax la yiraahdo jirto. Laba sababood ayaanay u aamineen. Sababta koowaad, diimaha samaawiga ah dhammaantood waxay qabaan inay ruux jirto. Dadkuna meesha ay ka sidaal qaataan maadaama ay diinta tahay wixii ay u sheegtay waana ay aamineen. Sababta labaad, dareenku qofku dareemayo inuu ruux leeyahay ka duwan dadka kale ayaa ku riixaysa inuu aamino in ruux ay jirto. Mujtamaca cilmiga baara waxay isku dayaan inay ogaadaan wax walbo ay isleeyihiin cilmiga ku dhisan ama cilmigu wuu ka salgaari karaa, iyagoo sameynaya tijaabooyin tiro badan si ay u ogaadaan run ahaanshiyihiisa iyo inuu yahay khuraafaad. Waxyaabahaasna waxaa ka mid ah mawduuca aan maanta ka hadli doonno oo ah safarka ruuxda oo tijaabooyin tiro badan la mariyay. Haddaynu qarniyo dib u laabano, filosoofkii Plato wuxuu yiri ruuxdu waa luulka bini'aadanka, kaasi oo dhaqaajiya jirka aadamaha, waxaanay ka kooban tahay caqli iyo doonis, halka Aristotle uu yiri ruuxdu waa qaybta ugu muhiimsan qofka. Intaasna wuxuu raaciyay in jirka iyo ruuxdu aanay kala maarmin. Culimada fiisigisku qaarkood waxay aaminsan yihiin in ruuxdu tahay qaybta qofka fikirka u qaabilsan ee caqliga ah. Haddaba diimaha samaawiga iyo falaasifadu hal mowqif ayay taagan yihiin oo ah inay ruux wax la dhaho jirto. Aynu u dhaqaaqno mawduuca ah safarka ruuxda. Ka hor wax walba waxaad ogaataa in aragtidani tahay mid aad qiimo u ah. Xadaaradii Masaaridu way yaqaaneen iyagoo ku magacaabay jirka qarsoon. Waayihii dhexe ee Plato uu jirayna haddaynu u nimaadno waa la yaqaanay iyadoo la aaminsanaa in uu yahay qaybta jirka ee qarsoon oo laga saarayo jirka muuqdo. Si fudud haddaynu u sheegno, jirkaaguna meel ayuu joogaa, ruuxdaaduna meel kale. Guud ahaan haddaynu qeexno, safarka ruuxda waa jirkaaga iyo ruuxdaadoo kala madax bannaan. Culimada baara waxyaabaha ka baxsan caadadeena oo ay ugu horeeyaan Salvan Moldon iyo Howard Carrington waxay leeyihiin marka aad riyada ku jirto dhab ahaan ma joogtid caalamka ee indhahaagu markaa qabanayaan. Filosoofka Rickard oo ah macallin ka mid ah macallimiinta jaamacadda Oxford ahna qoraa kitaabka la yiraahdo Mind, Brain and Free Will wuxuu yiri isagoo ruuxda qeexaya, haddaad rabto inaad ka sheekayso qisada caalamka oo dhan waxaa kugu waajib ah inaad sheegto dhammaan waxyaabaha adduunka ku nool oo dhan iyo calaamadahooda iyo mid walba waxa uu kaga duwan yahay midka kale. Laakiin inaad dabeecadaha ashyaaiga sheegto kama dhigna inaad sheekadii dhammaysay, balse waa inaad sheekada ku dartaa waxa isku xidhaya jirka iyo caqliga oo ah ruux la'aan wax noolaanayana ma jirayo. Marka aad riyoonayso waxaad saaran tahay diyaarad ka samaysan kaabalis miiqyo ah oo isku xidha qaybta la taaban karo oo ah jirkeena iyo qaybta aan la taaban karin ee ah ruuxdeena. Kaabaliskaasna shaqadoodu waxa weeye inay naftaada jirkaaga ku soo celiyaan marka aad ka soo dhammaato safarka ruuxda. Dadka badankooduna waxay isku qaldaan arrintan aynu ka hadlayno iyo wax lagu magacaabo faaliga hurdada oo ah marka aad hurdada ka soo kacdo inaadan mararka qaarkood awood u lahayn inaad dhaqaaqdo, balse wejigaagu wuu furan yahay, wax hareeraha ka dhacayana waad ka warhaysaa, balse dhaqaaqii ayaa kaa maqan. Arrintani waxay dhacdaa daqiiqado aad u kooban oo u dhaxeeya inta aad hurdada ka soo kacdo iyo inta aadan indhaha kala furin. Balse arrintan safarka ruuxda ah waxay kaaga duwan tahay. Adiga ayaa ikhtiyaarka leh inaad dhaqaaqi karto iyo inaadan dhaqaaqi karin. Waana sababta kala duwaysa labadan aragti. Aldon oo ah nin ku takhasusay arrimahan wuxuu yiri 8 ilaa 30% dadka ka mid ah waxay sheegteen inay tijaabiyeen safarka ruuxda oo ay meesha ay doonaan tageen iyagoo goobtooda jooga. 2017 Dr. Susan Blackmore waxay tiri qofku markuu uu rabo in uu safar geliyo ruuxdiisa
waa inuu kala saaraa caqligiisa iyo jirkiisa. yacni caqligaaga iyo ruuxdaada gabi ahaanba waxay ka madax bannaan yihiin jirkaaga. sidaasna waxaad ku galaysaa safarka ruuxda.